ardayda dugsiyada Dar es Salaam macallimiintooda maamulka waalidiinta marti sharafta ay ka yihiin saraakiisha ka socda dawladda xuqaasha culamaa diinka iyo inta u timid inay la qaybsadaan farxadda xafladan maanta lagu xusayo bilowga sanad dugsiyeedka 2016-2017 iyo sagootinta sanadkiina dhaafay iyo bahda saxaafadda maqal iyo muuqaalba dhamaantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda taxiya alxamdulilaahi alladii callama bilqalami callama lisaana maa lam yaclam waa aayad ka tirsan suuratul calaq waana tii ugu soo hordegtay ee lagu dardaarayay nebigeenni maxamed ahaa qaa'idkeennii dhakhtarkeennii calayhi salaatu wassalaam lagu dardaarayay dabargoynta iyo xididowsaarka aqoon darrida waxaana ugu horraysay iqra akhri waxaynu markaa innaguna daba soconnaa innagoo ku dayanayna hoggaankeennii iyo nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wassalaam inaynu dariiqaddii uu qaaday ee lagu amray innaguna fulino waayo waa sunni waxaynu ognahay maanta inay dugsiyadii bateen aad iyo aad bay u bateen ismaynaan weydiin weli sidee baynu u yaraynaa laakiin waxaynu isweydiinaynaa sidee baynu tayadooda u raadinaa wax waliba markay bataan tayaa loo baahanya waxaynu ognahay dugsiyadu ha bataan waa alxamdulilaahi nabaddaa keenaysa badashada caafimaadkaa keenaya badashada waxaa keenaysa taranka hadduu cudurkii garab socdo lama bateen haddayna nabadi jirin lama bateen markaa dugsiyadaa badani waxay calaamad iyo astaan u yihiin baahida loo qabo la dagaalanka iyo xididowsaarka aqoon darrida waxay astaan u yihiin baahida loo qabo horumar lagu gaadho aqoon waxay astaan u yihiin ummaddu ilbaxnimada ay ku hananayso dugsiyo badan si ubadku aqoon u yeeshaan waxaynu ognahay dugsiyadu waa halka lagu ilaaliyo dhaqanka ummad kasta waa halka lagu fidiyo mabaadi'da ummad kasta waa halka lagu ilaaliyo wixii dhaqan xumo ah ee soo gelaya wixii wanaagsanna la qaato waa halka lagu barto wixii aad la tegi lahayd masaajidkeed ilaahay ku caabudi lahayd ma sahlana ajarkooda iyo waxtarkooda sidaa darteed waxaanu leenahay aqoontu waa raasamaal qofka la socda waana sahay waana saad aan cidi kaa bililiqaysanayn ciddaa doontana aad wax ka siinaysid ummadina markay doonto inay hagaajisato waxqabadka mustaqbaleed waxay samaystaan dugsiyo wanaagsan waxa markaa isweydiin leh ubadkii iskuullaynu wada qorray xaafadihii baynu ku barbaarinaa aynu ku dherginnaa aynu dharkana ugu xidhnaa ilmaha aynu rabnaa se waakee waa noocee haddii waalid walba la yidhaah ilmahaad rabtaa waa noocee wuu sheeganayaa sidaa ay araggoodu u kala duwan yahay ayay maskaxdooduna u kala duwantah soomaaliduna waxay tiraa dadku ma sinoo sida farahaasi aanay u sinnayn ayaanay u sinnayn aqoontase maanta dar walba way ku jirtaa ilmaha aynu doonaynaa waa mid kow diinta islaamka yaqaana laba waa mid dhaqankiisa yaqaana iyo milgihii iyo maamustii soomaalinimo saddex waa mid yaqaan qiyamka islaamka oo ilaalinaya waa mid leh himile iyo hiigsi waa mid leh han waa mid garanaya halka loo socdo iyo ujeeddada laga leeyahay tacliinta waa mid aan darka laga riixan karin waa mid go'aan qaadasho leh waa mid hoo leh oo lagu soo hiran karo soo dhowaynta yaqaana oo aan albaabada soo xidhin waa inuu noqdo ilmo odhan karaya haa haddana odhan karaya maya go'aan qaadashaday ka mid tahay waa inuu noqdo ilmo lagu farxo dadkana ka farxiya waa inuu noqdo ilmo garanaya nadaafadda iyo dhaqanka iyo iimaanta waa inuu noqdo ilmo muwaadina oo garanaya dalku inuu yahay gurigiisii waalidka waxaan leeyahay
ardayda iskuullada waxay joogtaa 4 saacadood waalidkana waxay la joogaan 20 saacadood iyo bulshada saddexda udub ee ubadka wax ka bedeli kara waa dugsiga iyo guriga iyo bulshada haddii bulshadeenu maanta luqa carabiya ku wada hadlayso ilmuhuna toos buu uga hadlayaa luqa carabiya madrasadii buu ka soo baxayaa suuqu soo galaya waa af Soomaali madrasadii buu ka soo baxayaa gurigii buu tagayaa waa af Soomaali bulshadu waxay ku leedahay door aad u weyn bay ku leedahay saamaynta ilmaha xagga maskaxda xagga koriinka xagga muaamalada xagga dadla dhaqanka xagga ixtiraamka xagga marka waalidka waxa leeyahay ilmaha ku dadaalay inaan la idinla yeelan oo aad la saaxiibtaan oo aad bogga gashataan oo aad heshiis la ahaataan oo aad ammaantaan oo aad bagabagaysaan oo ilmahaagu aanu ku arkin bahal oo aanu ka baqan haddii marka la yiraahdo waa kan aabba soo hadlayo sariirta hoos galo aabban baa waa bahal oo ilmuhu ka baqdo waa inaad la saaxiibto waa inaad heshiis la ahaato ilmahaagu hadduu ku jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo aad la saaxiibto waxa hubaala inaanu kaa tahriibin waayo waxaanu doonaynaa inuu kaa nixiyo waxaanu doonaynaa inuu kaa cadhaysiiyo maxaa yeelay ilmahaagi saaxiibaati wanaag baa idin dhaxeeya sharaf baa idin dhaxeeya innaguna 10 jir baynu leenahay dhigdhig falaasta ha qaadine ilmaha mas'uuliyadda saara oo biilka u dhiiba oo ogaada inuu yahay mid wax baabinaya iyo mid wax dhaqan kara ilmihii baynu leenahay isagoo 10 jir ama dhowr iyo 10 falaasta ha u dhawaani koobka ha qaadin muxuu sameeyaa marka gurigiina waa ka mid wuxuu bilaabayaa marka dambe haddii aad u dhiibi weydo lacagta oo aad aamini weydo oo tusi weydo in lagu kalsoonayo guriga ka mid yahay inuu meesha dhigasaba kaa daba galay isaguna oo uu qaado adaa ka dhigaya tuug waa waalidkan la hadlaya haan waliba wixii lagu dhiga ayay dhididaa ilmaha waxaad ku rido ayaa ka soo baxaya dhaqan wanaag anshax wanaag haddii eebeyda keliya kariimnimo geesinimo daacadnimo kalgacal waxaad ku rido isna soo dhididaya haan waliba wixii lagu dhigay dhididaa sidaa darteed waxaan leeyahay waalidkow ilmahaaga yaan lagula yeelan yaan la idin kala dhex gelin fallaadhaha kalgacaylka idin kala socda haddaad kasbato cid idin kala dhex gasho u dhaawacaya marka waxaan leeyahay ilmaha waynu dherginaa dharna waynu u xidhnaa gardarradu la yimaadana waynu ku raacnaa waynu difaacnaa mabuu bixin inankaygu halkan bayna taydu ma dhaafin waxaas waxba kama jiraan waxaynu ognahay maanta waxaa jiri jiray dibtir iyo arday maanta dibtirkii ma jiro ardaygunbaa gelinka horena dharkii iskuulka inoo xidhan gelinka dambana inoo dhuljiifaynaya taa lafteeda ha lagu dadaalo ilmahan habeenkii budhcadda noqonaya waa inuu waalidku isweydiiya halkuu jira saacadee ugu dambaysa guriga laga raba maamuluhu halkan wuxuu ka yidhi jadwal ha loo sameeyo waa run saacaddaa orda soo ciyaara saacaddaa wax daawada saacaddaa wax akhrista saacaddaa nasta saacaddaa waalidka agimo saacaddaa masaajidka tag ilmuhu aduu kaaga baahaya tala iyo tilmaan ilmaha innagaa jihaynayna maha inaad sii daysaanoo meeshu doono xor baanay dee xor ma aha qofnaba xor ma aha mar haddii ilaahayba ku dili karo oo aanad wadkaba iska celinay sideed xor u tahay qof xorii ma jiro waxaan markaa leeyahay dugsigan daarasalaam waa dugsi ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waa dugsi maamulaheeduna weliba ka mid yahay odayada wasaaraddu wax ka weydiiso tacliinta shirkii u dambeeyay wasaaradda wuu joogay manhaj baynu yeelanay manhaj baa la soo saaray aynu leenahay oo lagaga maarmay gumaysigii ay hay-aduhu inagu hayeen ayna lahaayeen waa laydiin soo daabacaya ee inta yara la sameeyo kolba jus laga saarayay manhaj aaj cidi taaban oo inagu aynu leenahay oo aqoon-yahankii Soomaaliland qoray uu naftiisa u huray oo aanu kharashna ka doonin ayaynu samaysanay waa la diray waa laynoo soo daabacay wuu ogyahay maamuluhu waa la qaybin doonaa halkii buugga lagaa siin jiray $50 waxa laga yaabaa in $2 laydinka siiyo oo ilmuhu uu helo buug dhammaystiran oo midab leh oo nadiifa oo waxa laga doonayo kii la sawiri jiray midabkaa ka khaldanaa kani waa mid midab leh oo halkii blue laga ha blue halkii huruud laga rabay huruud tahay ilmaha wasaaraddu way u han weyn tahay wasaaraddu waxay u samaysan tahay inay ka fikirto aayaha iyo manhajka iyo mustaqbalka ilmaha
waxa go'aan lagu gaadhay barbaarinta fasalka la yidhaha barbaarinta carruurta waxaynu ku geynaa 3 jir in lagu bilaabo af Soomaali oo ilmaha la barbaarinaya lagu ababiyo oo lagu anqariyo luqatul ama afkii hooyo waxba ka keeni maayo ilmo yar gurigii ka soo baxay markay ABC la yidhaah waxba ka garan maayo ilmuhuna inta uu sabool ka yahay afkiisa af kalena wax ka keeni maayo fasalka koowaad ee dugsiga hoosana waa af Soomaali inta kale sidoodii ayaa lagu qaadanaya maamuluhu uu og yahay maamulaha dugsiga Sheekh Maxamed wuxuu ka mid yahay odayada dugsigana waa dugsi dhaqan ahaan iyo akhyaar ahaanba ay wasaaraddu og tahay culimaa joogta culimaa wax ka dhigta ilmahana waxa loo baahan in laga dhiso xagga dhaqanka xagga dadnimada xagga muaamalada oo waxa weeye ilmuhu uu noqon karo mid wax tabin kara dadna isor taagi kara waxna uu sheegi kara waxna ka dhaadhicin kara waxa uu doonayo waxa uu diidayana soo bandhigi kara waxaanu leenahay nasiib wanaag weeye dadka maanta madrasadani ku dhex taalo waa inuu inta ubadkoodii iskuulkani dhigata ay madrasada la socdaan oo ay ka war hayaan oo waad ogtiin oo wada halkan u dhow carruurtuna inta badan waa carruur isariyanaysa laamay baa halkaas socota waan arkay macallimiinta inta badan wadada ka tallaabinaysa waalidkuna waa inuu gacan ku siiyo waa in haddii la dabco madrasada in gacan la siiyo waalidku siiyo madrasad walba inta la jaarki waa inay ilaashato yaad u doonaysaan dadaan wax istarin yaa wax taraya markaad adigu wax istirtaa ilaahayna wax ku taraya ilaahay wuxuu inoo abuuray inaynu caabudno haddaad caabudi weyda waxba ismaa tarinee dee naartaad leedahay haddaad iscaawiso adigu ood ilaahay caabudana jannadaad leedahay markaa qofkii iscaawiya unbaa ilaahayna caawiya madrasadda haddaydaan idinku mucaawano la garab taagnaan oo aydaan garab gelin oo aydaan halka ubadkiina wax loogu dhiga ka dhigin meel lagu farxo meel ishu qabato meel nugulku ku doogsado dee ilmahaaga adaa raallikaa inuu meel walba dhex fadhiisto marka waxa weeye madrasadda iyo waalidka ardayda iyo macallimiinta inay noqdaan gacan waaxida waxaynu barbaarinayno iyo waxaynu korinayno iyo waxaynu mustaqbalka u rabaynaynaba waa quruxdii bari waa wasiirkii bari waa madaxweynihii bari waa guurtidii bari waa muhandiskii bari waa macallinkii bari waa maamulihii bari waa aabbihii bari marka waa inaynu u jeexno dariiq fiican oo aan qaldanayn oo saxa oo uu hanan karo oo uu ku faani karo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirku sida wanaagsan iyo hadalka qiimaha leh ee dhinac walba taabanaya ee ayuu nagala hadlay insha allahu tacaala innagoo halkaa ka sii wadan doonaa hawlaheennii waxaan u yeedhi doonaa ardayad ka hadli doonta gabay ku saabsan ay kula hadlayso waalidka asma yuusuf ismaaciil falyatafaddal mashkuuran aad soo dhowaato ardayadaas waalidkuna